ururka Adal Charity oo ah walaalo muxsiniin oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba ayaa maanta waxay jaga cabirkeedu yahay 15 oo ku taala galbeedka magaalada Boorama ay ku wareejiyeen xaaskiyo caruurtii ka hadhay Allah u naxariistay Abwaan Axmed Saciid Deeriye Afkuriye waxaana goobjoog ka ahaa madashan xubno ka tirsan bahda fanka ee gobolka Awdal ganacsato iyo badiba mas'uuliyiinta walaalaha muxsiniinta ah ee Adal Charity waxayna dhamaantoodba ka codsadeen shacbiga gobolka Awdal qurbajoog iyo qolqoljoog inay ka soo wada qayb qaataan dhismaha aqalka ay rabaan inay u dhisaan xaaska iyo caruurtii ka hadhay alla naxariistii jannaha ka waraabiye Abwaan Axmed Saciid Deeriye Afkuriye ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka walaalaha muxsiniinta ah ee Adal Charity iyo xubnaha ururkaasi waxna hadaladoodii kamid ahaa waxaan maanta halkan ugu wareejinay Abwaan Afkuriye caruurtiisii jagada aan u wareejinay waxaan baaq ugu diraynaa abwaanku muu ahayn nin gobolun ah abwaan Soomaaliyeed buu ahaa waxaan u diraynaa Soomaali meel kasta ay joogto dal iyo dibadba inay soo caawiyaan agoonta sidii kii hore Abwaan Afkuriye ay uga geysteen abwaan qiiq inay sidiisii oo kala quruxdii hore ay sameeyeen maantana ay sameeyaan reer Awdal iyo Soomaali oo dhan agoonta maanta la soo caawiyo dal iyo dibadba laga soo caawiyo guriga loo dhameystiro ayaan baaq ugu dirayaa qurbajoog iyo qolqoljoog iyo dadka baayac mushtarka ah ee ka dhaga adeegaya ummadda masaakiinta ee agoomaha ay nagu dhaxnool in baaq waxaan u diray inay ka gacan geystaan agoonta magac buu lahaa nin qaali u ahaa in la caawiyo agoontiisa meel qurux badan la dajiyo ee Soomaali buu ka tirsanaa nin Soomaaliyeedna uu ahaa nin qabiil ma ahayn Soomaali baan baaq u diray inay u soo dhisaan agoonta waxaan dhex taaganahay waxa weeyaan waa jagadii marxuun Allah u naxariistay abwaankeennii weynaa Afkuriye waa jago cabirkeedu yahay 15 insha Allah ururka Adal Charity ee u mudoobay yacnihii inay ummadooda ay wax ku soo celiyaan dadka danyarta iyo dadkii yacnihii qaaliga inagu ahaayeen naga baxay xasuustay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa horta aad iyo aad baanu hablaha qaaliga ee bayskoodu yahay Ingiriiska ee Adal Charity aan ugu mahad celinaynaa ummadda kale ee muslimiintaana waxaan leenahay cid walba waxay awoodo ha ku soo qayb qaadato guriga dhiskiisa iyo dhameystirkiisa hadii Ilaahay yiraahdo hablaha Adal Charity waxaan leeyahay halka aad ka soo saarteen miisaanka xasanaadka Allah idinku daro maanta waxaad iibiseen jagadii tii hore ee maxad abwaan qiiqna way idinkii dhisay tanna waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo amaanadu baaqi tahay Ilaahay khayr badan ha idin siiye sida taa horeba iskugu tashateen inaad u dhistaan inaad tanna ugu dhistaan qof agoona wax tara miisaanka xasanaadka ee uu ku leeyahay aakhire Ilaahay baa xisaaba maanta meeshan aan joogno waa jagadii loo iibiyay Afkuriye eeladii ka hadhay caruurtii ka hadhay iyo xaaskii ugu weynaa walaal waxaan baaqaan idinku dirayaa inta muslimiinta ee taqaana magaciisa iyo muuqiisa walaalayaal inaad soo caawisaan oo jagada gabdhaha qurbajooga ee walaalaha Ilaahay xasanaadka ugu daree u soo iibiyay inaad idinkuna walaalayaal u soo dhistaan oo aad ka soo farxisaan agoonta Ilaahay markaad isku naxariisataan buu Ilaahay isaguna samada idinka naxariistaa waxaan leeyahay walaal qolqoljoog baan la hadlayaa kuwa gudaha gobolka Awdal jooga ee lacagta haysta ee hantida haysta walaal waa halkay ku baxaysay maanta waa halkay ku baxaysay waa inaad u soo dhistaan jagada 15 iyo 15 ah waa inaad u soo dhistaan abwaanka agoontii ka hadhay waxaan joognaa horta maanta waxaan joognaa jagadii loo iibiyay Abwaan Axmed Saciid Deeriye Afkuriye agoontiisii weynayd ma sha Allah horta Ilaahay baa mahad leh wata jagadu waana xana halkaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa mahad leh waxaana abaalmarin iyo maxaan dhahdayle sharaf iyo ciise Ilaahay siiyay ururka maanta midoobay hablaha dibadda jooga iyo hablaha iyo dadka jooga inta dalka joogtaba waa ururka Adal Charity Organization ururkaas oo marka horena la oran jiray ururkii samafalka ee Daryeel waxaan hadda joognaa oo jagadii Abwaan Afkuriye agoonta ka hadhay loo iibiyay oo ciddii u iibisay ama ka qayb qaadatay si guud u mahad celinaynaa oo koow ka yihiin ninka jagada iibiyay Yuusuf Saciid Tukaale saaxiibkay iyo sidoo kale
adal charity organization oo iyagu qaybta weyn markasta u taagan inay dadka dhibaataysan soo caawiyaan jazakumullahu khayr baan leenahay waxa la yiraahdaa nigu sallallahu alayhi ma la mashkur naas la mashkurillah dadka dilo ma hadnaqi waaye dee socon mayso diinteena amrays iyagu waxa la yiraahdaa jazakumullahu khayr baan leenahay ummadda muslimiinta cid kasta afka Soomaaliya garanaysa waxaan leenahay aan ku sifoowno aan ka qayb qaadano hadalka nigu sallallahu alayhi wasallam dadka ugu wanaagsan oo dadka waxtar u leh afaan garaabin islaam kuma yaale waxaan u mahad celinayaa ururkan ka tirsanahay Adal Charity Group walaalaha muxsiniinta jeebkooga isku soo daray shilin ugu dambeyn soo gaarsiiyay maanta barti ay u nugleeday lagu baahi badnaa Axmed Siciid Deeriye abwaan afkuriye abwaan qaran buu ahaa kamuu tagin kaliya ehliya asxaabu gooniya jufo gooniya qaran buu ka baxay dadka muxsiniinta ee jecel wanaaga waa maalintii la lahaa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa arada korkeeda isugu naxariisataan ilaahay baa isna samada sare idin ka soo naxariisanaya ujeedkiiyo dulucdu waxay tahay jagada maanta Adal Charity Organization ay gudoonsiiyeen caruurtii agoonta ahaa waxay u baahan tahay kaliya halka laga dhaqaajiyo guriga dhismihiisa la dhameystiro sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan bahdafanka ee gobolka Awdal waxay uga mahad celiyeen walaalahan isxilqaamay sida mugeeyo miisaanka leh ee ay ugu taagan yihiin inay wax la qabtaan walaalahooda tabaalaysan waxayna ugu baaqeen shacbiga gobolka Awdal inay ka soo wada qayb qaataan dhismaha aqalka loo dhisayo Allah u naxariisto xaaskii caruurtii ka hadhay abwaan Axmed Siciid Deeriye afkuriye waxana hadaladoodii kamid ahaa inaan isku nimaadno subaxa saaka oo ka qayb galno jaga lagu wareejinayo marxuumkii Allah u naxariistay xaaskiisii weynayd horta xaasaskiisu way badan yihiin laakiin Allah casaawo jilluunba wax wada gaarsiin kara xaaskiisii weynaa lagu wareejiyo waxa suura galiyay marka ugu horeysa Allah weyn baa suura galiyay waxa leh abaalka iska leh Adal Organization ayaa iska leh oo maxay haytay 24 saac umada cid walo jilicsan qarab taagan ee mar walba waa hablo u bahoobay ilaahay dirti u bahoobay inay sadaqada ay bixiyaan mar walba fanaaniintana ay garab istaagaan waxaan idinka codsanayaa oo ilaahay dirti idinka codsanaya inaad garab istaagtaan dadka jilicsan fanaaniinta abwaaniinta jilicsan anagu wax alla yeelo waxaanu kaydsanaa ma jiro idinkaanu idin heesnaa idinkaanu idin madadaalinaa idinkaanu wax alla waxaanu haynay anu intaan faraha dhignaanu idin heesnaayo ka abwaankina wax idin sameeya waxa weeyaan inaad ilaahay dirti u garab istaagtaan oo sadaqada dhiibataan oo jeebka aad ka soo saarteen aad aakhiradiinana waad u dhiganaysaan maaha dhayaldhayale garab istaag ilaahay idinki ilaahay halkay ka soo saareen wax khayr qaba ilaahay u galiyo maanta aad baan u faraxsanahay waxaan doonayaa gurigaana in la taago jagada maanta bannaan ilaahay dirti loo istaago hablahaana la garab galo muxuu ahaaye Adal Organization qofkii caawinaya aqalka abwaan Axmed Siciid afkuriye miisaanku lahaa ilaahay ummadba way taqaanaa qofkii caawinayo san shalay abwaan Cabdixakiin Cabdullaahi Jibriil qiiq u caawinay maantana Axmed Siciid afkuriye ha loo caawiyo nin adduunka taariikh loo ahaa qofka bini'aadanka ee taariikhda leh dadkooga taariikhda la way xusaan inaga dadkeeni taariikhda la waxa qariib aan la yaabana ilmaada rayaal ilaahay intaad ka baqdaan ilaahay dartii Axmed Siciid afkuriye aqalkiisaasi si qurux badan ugu soo dhameystira dadkaasi rag iyo dumar bale maxayd Adal Organization hala soo caawiyo sida ugu dhaqsida badan leh guriga ha loogu dhiso ilaahayna caafimaad sareecan oo dib ugu kulanno inagoo furayna Allah subhanahu wa ta'ala ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadashay oo jagadani ee la wareegtay xaaska ugu weyn xaasaska uu ka tagay Allah u naxariisto abwaan Axmed Siciid Deeriye afkuriye waxayna uga mahad celisay walaalahan muxsiniinta ah waxana hadaladeedii kamid ahaa على سيدنا محمد halkan waxaan uga mahad celinayaa ururka gabdho oo inamale ee dal iyo dibad inta joogta aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ku salaamayaa salaanta ugu qaalisan 14 quraanka ku salaamayaa ilaahay khayr siiyo aad baad mahadsantihiin markasta waan soo ducaynayaa aad baan ni salaamayaa waan mahadsantihiin waan niga gudoomay miisaanka xasanaadkan Allah inagu daro. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Zakariya Cabdi Sheekh Faarax Zakariya Saxane magaalada Buurama.